waxaa laga yaabaa in magaca Mika Godz uu dad badan ugu horreyn ku xasuusiyo kubadda cagta gaar ahaana garabka weerarka ee kooxda reer Netherlands ee Ajax dhowaana la filayo inuu ku biiro kooxda PSG. Laakiin sheekada Mika Godz ma ahan oo keliya sheeko ku saabsan ciyaaryahan da'yar oo si xawli ah uga dhex muuqday kubadda cagta Yurub. Noloshiisa gaarka ayaa sidoo kale soo jiidatay indhaha warbaahinta, gaar ahaan markii uu guursaday Xaifa Saliim Cali oo asal ahaan Soomaaliya, kadibna ay soo baxeen su'aalo badan oo ku saabsan xiriirkooda Islaamka. Laakiin su'aasha ugu weyn ayaa ah Mika Godz ma Muslim ayuu noqday? Sidee ayuu xiriirkiisa ula bilaabmay Xaifa? Goormay is guursadeen? Maxaase ciyaaryahanka reer Belgium uu ka yiri diinta Islaamka? Aan dib ugu laabanno bilowga nolosha sheekada. Mika Marcel Godz wuxuu ku dhashay magaalada Leuven ee dalka Belgium 7 Juun sanadkii 2005. Sidaa daraaddeed, marka la eego taariikhda maanta ee 2026, Mika Godz waa 21 sano jir, inkastoo warbixinno dad badan ay qoreen xilligii uu 20 sano jirka ahaa ay weli sidaasi ugu yeerayaan. Mika Godz wuxuu kubadda cagta ku bilaabay kooxda Belgium isagoo soo maray akademiyadda RCSC Anderlecht ka hor inta uusan u wareegin KRC Genk. Kadib horumarkiisa, Genk waxa uu u dhaqaaqay kooxda Ajax ee Amsterdam sanadkii 2023, halkaasi oo uu tartiib tartiib ugu noqday mid ka mid ah ciyaartooyda da'da yar ee indhaha lagu hayo. Wuxuu inta badan ka ciyaaraa garabka bidix, waxaana lagu yaqaanaa xawaare iyo awood uu ku abuuro fursado weerar. Laakiin inta badan waxaan maanta ka hadlayno ma ahan xirfadiisa kubadda cagta, waa sheekada noloshiisa gaarka. Mika Godz waxa uu xiriir la lahaa Xaifa Saliim Cali oo ah haweeney asal ahaan Soomaali ah, ku dhalatay dalka Soomaaliya, iyadoo markii ay ahayd ilmo yar ay qoyskeeda u qaxeen dalka Belgium. Xaifa waxay sidoo kale noqotay qof si weyn looga yaqaano dalka Belgium. Waxay ka shaqaysaa modelinka, waxayna leedahay xirfad u gaar ah oo dhinaca qurxinta sunayaasha, waxayna waxbarasho ay ku sii wadatay dalka Belgium. Sanadkii 2023 ayay ku guuleysatay tartanka Mrs Limburg, taasi oo u sahashay in ay ka qayb qaadato tartanka Mrs Belgium, halkaasi oo ay gaartay marxaladii ugu dambeysay ee nolosha. Laakiin Xaifa iyo Mika xiriirkoodu ma ahayn mid dhowaan bilaabmay. Mika ayaa sheegtay in uu Xaifa yaqaanay taniya markii uu jiray 14 sano. Labadooduba waxa ay muddo dheer ay ahaayeen lamaane, waxayna ugu dambeyn go'aansadeen in noloshooda ay si rasmi ah u wadaagaan. Mika waxa uu sheegay in guurka da'da yar uu ahaa go'aan ay si miir leh u qaateen. Waxa uu sheegay in ay doonayeen nolol degan oo ay si wadajir ah u dhistaan. Bishii Juun sanadkii 2025 ayay warbaahinta Belgium iyo Netherlands shaacisay in Mika Godz uu u guursaday Xaifa Saliim Cali. Wararka la daabacay 28 Juun sanadkii 2025 ayaa sheegay in arooskoodu dhacay Jimcadii 27 bishii Juun sanadkii 2025. Waxaa xiisaha gaarka lahaa nooca xafladda ay doorteen. Guurkooda waxaa lagu qabtay waxa loo yaqaano nikaax, oo ah xaflad ama heshiiska guurka Islaamiga. Sawirro laga soo qaaday munaasabadda arooska ayaa muujisay Mika iyo Xaifa iyagoo martidooda soo dhaweynaya. Sidaa daraaddeed, waxaa xaqiiqo ah in lamaanahan ay guurkoodu ku mareen xaflad nikaax oo Islaami ah. Laakiin hal qodob waa in la kala saaraa. Nikaaxa ay lamaanuhu galeen ma ahaan caddeyn rasmi ah oo muujinaysa in Mika Godz uu diinta Islaamka qaatay. Taasi ayaa noqotay su'aasha ugu weyn ee warbaahintu ay soo xiganaysay. Su'aashan ayaa si weyn loo weydiiyey kadib markii la ogaaday in uu guursaday Xaifa isla markaana uu ka qayb qaatay dhaqanka bishii barakeysneed ee Ramadaan ee sanadkii 2025. Xitaa sanadkii 2024 ayaa la sheegay in Mika uu soomay bisha barakeysan ee Ramadaan. Laakiin markii dambe warbaahinta ayaa si toos ah u weydiisay haddii uu diinta Islaamka qaatay. Jawaabtiisu waxay ahayd mid aad u cad. Wuxuu yidhi, arrintaasi waxaan doorbidayaa inaan ka hadlin, waana arrin aniga ii gaar ah oo i qusaysa. Sidaa daraaddeed, ilaa iyo hadda ma hayno hadal rasmi ah oo Mika Godz ka soo baxay oo uu ku leeyahay waxaan qaatay Islaamka ama waxaan ahay Muslim. Waxaan haynaa waa xaqiiqooyin kale oo muhiim ah
wuxuu ka qayb qaatay bisha barakeysan ee Ramadaan, wuxuu guursaday Xaifa Saalim Cali iyadoo loo marayo meher xalaal ah oo islaami ah, wuxuuna si cad u sheegay in muddo dheer uu xiiseynayay diinta Islaamka isla markaana wax badan ka bartay. Laakiin markii la weydiiyey inuu Islaamka qaatay, waxa uu doortay inuusan xaqiijinin ama beeninin. Taasi waa sababta warbixintan aynu markaasi kaga faahfaahinayno amuurahan. Mika Goods waxa uu muujiyey xiiseyn weyn oo ku saabsan diinta Islaamka, wuxuuna guursaday gabadhaasi. Mika Goods waxa uu sheegay in xiisaha uu qabo diimaha uusan ahayn wax ka dhashay oo keliya xiriirka uu la leeyahay Xaifa. Waxa uu sheegay in horeyba u xiiseyn jiray diinta Islaamka. Wuxuu ka yimid qoys ay hooyadiis ka soo jeedo qoys Masiixi ah, hooyadiina ay kiniisadda tegi jirtay toddobaad kasta. Laakiin Mika waxa uu sheegay inuusan isagu sidaasi u samayn jirin, laakiin waxa uu sheegay inuu yahay qof xiiseeya fahamka dunida isla markaana uu diimaha si furan u eegayo. Waxa uu sheegay in diimaha uu ka bartay waxyaabo badan oo uu arko inay qofka noloshiisa wax ka tari karaan. Haddaba arrintan waxay muujinaysaa in xiriirka Mika iyo Islaamku uusan ahayn wax warbaahintu keliya ay abuurtay. Waxaa jira dhacdo kale oo la xaqiijiyay Ramadaanka, nikaaxa iyo hadalladiisa ku saabsan xiisaha uu qabo diinta Islaamka. Laakiin go'aankiisa ugu dambeeyay ee ku saabsan caqiidadiisa waxa uu ku soo koobay noloshiisa gaarka. Xiriirkooda Mika iyo sidoo kale haweeneydan uu guursaday ee Xaifa la yiraahdo iyo waayihii adkaa ee ay soo martay, waxa uu sheegay in Xaifa ay Soomaaliya ku soo martay xaalado dagaal iyo dhibaatooyin kale ka hor inta aysan carruurnimadeedii ugu dambeyn Belgium ku imaanin. Waxa uu qiray in waayo-aragnimadeedu aad uga duwan tahay sida uu isagu ku soo koray. Waxa uu sheegay inay mararka qaar ka wada hadlaan waayo-aragnimada inkastoo aysan mar walba ahayn wada sheekaysi fudud. Mika wuxuu sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay kartida haweeneyda lagu magacaabo Xaifa. Wuxuu yiri waxay leedahay shaqadeeda, waxbarashadeeda iyo nolosheeda gaarka. Waxa uu xusay inaysan dooneynin in noloshoodoo dhan isaga oo keliya ay ku wareegto. Arrintaasi waxay u muujisay in xiriirkoodu uusan ku koobnayn oo keliya magaca ciyaaryahan caan ah ama iyada in ay tahay model. Waxaa jira 3 arrimood oo sheekadan ka dhigaya mid si gaar ah loo xiiseeyo. Midda koowaad waa da'da. Mika wuxuu guursaday isagoo 20 sano jir ah xilli uu weli ku jiray marxaladda uu xirfadiisa kubadda cagta si weyn u dhisanaya. Midda labaad waa asalka lamaanihiisa. Waxay ka soo jeedaa Soomaaliya, waxayna carruurnimadeeda ku soo qaadatay waayo-aragnimo iyo khibrad aad uga duwan midda Mika ee dalka Belgium. Midda saddexaad waa diinta. Guurkoodu wuxuu ahaa nikaax Islaami ah, wuxuuna ka qayb qaatay bisha barakeysan ee Soon. Wuxuu si furan uga hadlay arrinta diinta, hase yeeshee wuxuu weli ilaalinayaa sirtaasi. Gabagabo, Mika Goods ma aha oo keliya ciyaaryahan reer Belgium oo rajo weyn laga qabo. Waa wiil 21 sano jir oo noloshiisa gaarka ay sidoo kale noqotay mid warbaahintu ay aad u danayso. Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka maanta. Tani muuqaalkan xiga intaynu dib dambe hawada ugu wada kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.